where about 125 people or so are meeting in here right now under strict lockdown and strict secrecy to discuss some things that are most certainly going to affect you and me in the very near future. They have no interest in democracy. They never did. The Bilderberg Group is rumored to have their hands in everything from pharmaceuticals to advanced technology. An unofficial group of the world's most influential leaders and most dedicated minds who come together once a year in military-guarded secrecy to discuss the inner workings of society and how they would like to see the next year play out on a global scale. Do they intend to rule the world? So over there, the world power elite are gathering. haddii adigoo iska baraadla lagu yimaado lagu wargeliyo war dhiila leh oo lagu sheego in lagu tashanayay kadibna intaad ama kaag afka kala qaadid adigoo aan fiirsan dib ugu celisid cidii warka dhiilada leh ku siday su'aasha mudan in la weydiiyo oo ah oo yaa ii tashanayay kadibna lagu sheego inay dad ku tashanayeen aanad adigu garanayn balse iyagu ku garanaya waad weydiisid su'aasha mudan in la weydiiyo oo ah oo maxay ugu tashanayeen dadkaas maba garanaye lagu sheego in ay kugu tashanayeen xalinta adiga dhibaatooyinkaaga oo aad ku jawaabtid oo dad aanan anigu garanayn maxay u xalinayaan ani dhibaatooyinka haysta halkaas waxaa kaaga dhamaya jiritaanka dibindaabyo iyo hagar ad lagula maagan yahay videogan haddaba waxaan kugula wadaagi doonaa xog ay tahay mamnuuc in la ogaado iyo xaqiiqada qarsoon ee daaha gadaashiisa looga maamulo dunidan aynu ku noolnahay soo dhawaada daawadayaal gruubkan waxaa lagu magacaabaa Bilderberg Group waa gruub yeesha kulan heer caalami ah kaasoo lagu xalinayo dhibaatooyinka adduunka kulankan ayaa ah mid bataatanba mid qarsoodi ah oo aan la ogoleen in la ogaado ajandaha looga hadlayo cidda ka soo qayb galaysa goorta ay goobta lagu qabanayo kulankan ayaa waxaa looga soo qayb galaa oo kaliya عزومات ayadoo hore loo xushay dadka ka soo qayb galaya isla markaana loo diro عزومات in ka soo qayb galaan kulankan ayaa la sheegaa kulankan ayaa lagu magac daraa inuu yahay dood cilmiyeed balse dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin inuu yahay kulankan madasha lagu sameeyo hogaamiyaasha adduunka lagu dejiyo nidaamka cusub ee caalamka isla markaana laisku dabarido ama lagu qorsheeyo siyaasadda lagu hagayo caalamka kulankan ayaa waxaa buddigiisa lahaa boqorkii Netherland ee la oran jiray Prince Bernhard haddaba su'aasha dad badan ay isweydiinayaan ayaa ah haddii uu yahay mar kulan lagu xalinayo dhibaatooyinka adduunka maxaa looga dhigay sir ajandaha looga hadlayo maxaa loo diiday in laga soo qayb geliyo saxaafadda caalamka maxaa sir looga dhigay dadka ka soo qayb galaya iyo goorta la qabanayo waa arrin mugdi badan uu ku hareeraysan yahay dad badanna ay sheegaan inuu yahay gacanta qarsoon ee nidaamka kapitalismka ku maamusha dunida